kulan wacan la taliya amniga qaranka Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyay ciidamada Turkiga oo soo diray Soomaaliya waxa uu sheegay inay daba socod heshiiskii difaaca ee dhawaan gaareen labada dal. Xuseen ayaa sheegay in ciidamada Turkiga ee Muqdisho imaanaya ay door weyn ka qaadanayaan dhismaha ciidanka Soomaaliya gaar ahaan kuwa bad sida hore ugu heshiiyeen labada dal. Xuseen Macalin ayaa idaacadda VOA laanteeda afka Soomaaliga u sheegay in ciidamada imaanaya ay yihiin ciidamadii badda u dhisi lahaa Soomaaliya oo heshiiskii dhaqaalaha kala saxiixday. Ciidankan oo la sheegay inay militariga ka imaan lahaayeen ayuu madaxweynaha Turkiga u jeediyay in loo daabulo si ay u caawiyaan maraakiibta sahanka shidaalka ka samaynaysa Soomaaliya. Inkasta oo bilowgii sanadkan heshiis weyn ee difaac iyo dhaqaale ay wada saxiixdeen Soomaaliya iyo Turkiga, ayaa haddana dhawaan waxaa dowladda federaalka Soomaaliya heshiis baaris shidaal ay la saxiixday dowladda Turkiga. Heshiiskan ayaa dhigaya in Turkiga uu shidaal ka baari doono 3 aag oo ku yaala gudaha biyaha Soomaaliya sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga Anadolu. Heshiiskan ayaa wuxuu xuquuq qaas ah siinaya Turkiga inay hydrocarbon oo ah shidaal iyo gaaska dabiiciga ka baarto kadib ka soo saarto 3 aag oo kiiba yahay 5,000 kiiloomitir oo isku wareega sida uu sheegay wasiirka tamarta iyo macdanta ee dalka Turkiga Bayraktar. Labada ka mid ah aagaga ayaa waxay 50 kiiloomitir loo galiyaa badda, halka mid ka mid ahna uu gudaha badda loo aadayo ilaa 100 kiiloomitir. Si kastaba ahaatee, Turkiga ayaa si uu qorshe u yahay bisha Sebtembar ee sanadkan samayn doona saxminta shidaalka goobihii lagu heshiiyey inay shaqada shidaalka ka qabtaan gudaha dalka Soomaaliya. طبعا dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaalada socdaan. maalmahaas ay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ay waday iyo shacabka shabaab la diray. dagaalku marka waa socdaa. qorshihii ku socday horeeto oo lagu soo dhameystirayay wajiga koowaad ayaa weli socda, meel fiican ay marayaan. waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kale reformka hoggaanka sare ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. marka howshu waa socotaa. dagaalku dacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. dagaalku weli waa socdaa, mana aha dagaalku socodshadiisa keliya maaha markii xabaddu dhacayso, waa howlaha qorshaynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguuridda intaba qayb dagaalka ka mid ah oo socota waaye. marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay dowlad ahaan hal maalin ma joogsan. dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya oo dhuudhuujis u baahan. sanadkii horeeto bishii August waa tii dhacdadii weyneed oo cusweyne dhacday ay aad u saameysay ciidanka xoogga. degdeg ayaa looga soo qabtay. sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ay u bilowdeen. hadda waxaa hawshii fayska koowaad oo galmudug ka socday CDC ayuu weli qorshaha koowaad u yahay, laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale uu joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobolada kaleeta South West iyo Jubbaland intaba ah. horey ayaan u cadaynay bulshada dowladda Soomaaliya inta ugu memorandumkaas xaaraanta ahaa weli dowladda Ethiopia ay ku taagan tahay in aysan qayb ka noqonaynin ciidanka oo Afrikaanka howlgalka geli doona. laakiin sidaas oo kale waxaan sheegay in go'aankaas uu kaliya isku bedeli karo haddii ay ka noqdaan hawshaas. hawsha ka noqoshada iyo dadaalkeeda waa hawl socota oo dowladda Turkiga hadda ay maaragtay dhexdhexaadinteedu wado. haddii lagu guuleysto inta waqtiga uusan naga dhammaanin in ay fursad heli doonaan in ay nabad ilaaliyayaal noqdaan, laakiin iyaga oo hawsha oo xadgudubka ah wada inaysan ka mid noqonin. marka waa weli su-aal taagan oo aanan hadda jawaabteeda hadda dadweynaha la siin karin. rasmi ahaan cidda ay khusayso oo dhan waa ogyihiin, waana maaragtay waana u sheegnaa, laakiin waqti hawshaas lagu xalliyo ayaa weli furan. طبعا dee waa heshiiskii guud oo aan maaragtay dowladdeena ansixisay. dowladda Turkiyana dadaalkeeda way waday in ay heshiiskii difaaca oo galnay ay qaybteedii ay honor garayso. waa mainly ciidamada imaanaysa waa ciidamadii badan oo dhisi lahaa. heshiiskii oo dhaqaale oo la kala saxeexdayna fulinteeda qayb ayay ka tahay. yani qaabkii howlgeli doonaan iyo sidii howlgeli goortii howlgeli doonaan waa weli wax maaragtay aanan la gudagelin, laakiin in heshiiskii la bilaabo oo la hirgeliyo si
hawshii dhaqaale iyo hawshii military labadaba ay isku mar bilowdaan maya qorshe Masar ciidamo noogu soo diraysan jirta laakiin heshiisyada difaaca waa heshiisyo regular oo dawladaha aan saaxiibadan nahay aan la wada galno xooguna muhiimkana waxay tahay sida ay uga qayb qaadan lahayd Masar sidii ay ciidamada Soomaaliya lagu wada u istaagi lahaayeen Soomaaliya difaacan lahaayeen Soomaaliya kuma taragelayso in dalkeeda loo difaaco muhiimka waxay tahay dalalka aan la saaxiibayno waxaan kula saaxiibaynaa inay kartidii Soomaaliya lagu difaaci lahaa ay qayb ka noqdaan baaritaanka waa socdaa sooma bixin marka intaas intii hordhacahayd oo dawladdu la wadaagtay ayaa hadda ku habboon inay bulshadu haysato oo aniguna aan ka hortagin dawladdu wax hub ay Itoobiya ka dalbatay ma jiro faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta marka in aan ka hordhaco diyaarumi waa the same answer waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa dhankooda maamulka Somaliland ayaa digniin u diray dawladda Turkiga oo qorsheynaysa inay markab u soo diraan xeebaha Soomaaliya sidoo kalena sahmin shidaal ka samayn doona badda Soomaaliya sida ku cad heshiiska dawladda Soomaaliya iyo Turkiga heshiiskan ay ka caratay Somaliland ayaa daba socday afgaradkii Somaliland iyo Itoobiya ay gaareen bilowgii sanadkan kaasoo qaybo ka mid ah badda Soomaaliya loogu saxiixay Itoobiya wasiirka arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Kaahin oo waraysi siiyay BBC-da ayaa ka hadlay qorshaha Turkiga ee Soomaaliya waxaana uu sheegay in dawladda iyo shacabka Somaliland aysan raalli ka ahayn dhaqdhaqaaqa Turkiga ee Soomaaliya wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in shuruucda caalamiga ay la tiigsan doonaan dawladda Turkiga haddii aysan ka waantoobin dibindaabyada Somaliland ee dawladda federaalka ay kala shaqaynayso sida ay hadalka u dhigeen Somaliland ayaa u muuqatay inay cabsi badan ka muujinayso markab ay dawladda Turkiga u dirayso badda Soomaaliya qaybaha ugu daran ee Itoobiya ay ka ilaalin doonaan waa badda Somaliland maadaama qaybo ka mid ah loo saxiixay Turkiga dhankiisa la taliyaha amniga qaran ee Soomaaliya Xuseen Macalin Maxamuud ayaa shaaciyay sida kaliya ciidanka Itoobiya uga sii mid ahaan karaan howlgalka midowga Afrika oo gudaha Soomaaliya xilligan ku joogaan Xuseen ayaa sheegay in ciidanka Itoobiya ay dalka ku sii joogi karaan iyadoo xukuumadda Abiy Ahmed ka laabato xadgudubka ay kula kacday Soomaaliya taasoo ka dhigan ka laabashada isafgaradkii badda ee Somaliland waxa uu si cad u sheegay in ciidanka Itoobiya ay Soomaaliya sii joogi karin inta ay weli dawladda Itoobiya ku taagan tahay heshiiskaasi oo si weyn uga carotay dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay go'aankan si rasmi ah uga wargelisay dhinacyada ay khusayso Itoobiya ayna weli furan tahay halka gaaridda arrintaasi Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa si weyn u kala fogaaday kadib heshiiskii 1 Janaayo ee sanadkan ay magaalada Addis Ababa ku gaareen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Muuse Biixi kaasoo Itoobiya loogu saxiixayo qaybo ka mid ah biyaha Soomaaliya midaasi oo garafka ku dhufatay dawladda dhexe maadaama uu xadgudub ku yahay madax banaanida iyo midnimada dalka Soomaaliya